سؤال سو أركتين كويديو يا سؤال ها سو أركتين كويديو سؤال هذا يا هردي فير ما بحال قوري لها حكي القرآن ما يبغى كم حيوان يا إفهانس هردي إفهانسية وحيه وحك كاميرا دوي ها ما هو سول صار با يا سول صار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجكii xiisaha lahaa isweysiyo su'aalaha oo ah barnaamij toddobaadla isla markaasna bulshada su'aalo ku weydiino su'aalahana weydiinayna nala daawada waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka isweysiyo su'aalaha soo dhaweynaya magacaaga طيب أحمد محمود طيب su'aashu waxay ku leedahay cirka iyo dhulka maxaa u dhaxeeya هوا ودحي su'aasha kale waxay ku leedahay waxa sheegtaa hooyada oo xaamila baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay umushay adiga walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin hooyada ma habreed un baanahay hooyada habartay un baa yaa hooyada noqon ka dhee adiga hooyada tusaale ahaan su'aashu hooyada baa safar gashay iyadoo xaamila ilmay dhashay ilmaha walaalka ma ahan maxaa isku tihiin aniga hooyada ay dhashay baa ilmo dhashay waa walaalkay weeye walaalka ma ahaaba lagu muxuu yahay taa muxuu xagee ka yimid waa la keen miya waxaan ku weydiinayaa degmooyinka gobolka Mudug waa meeqa degmo magacyadooda laga rabaa gobolka Mudug degmooyinkooda inkastoo wuxuu inaga khaldan yihiin waa kala aqaan waa magaalada Gaalkacyood mid waa Jiriban mid waa magaalada la yiraahdo iiken magaalada ka shaqeysa magaalada ay sheegeen bismillaahir rahmaanir rahiim maya waa keenay waa galdagob mid waa qaybta labada shoo hawiyuhu degan yihiin magacyadooda waa galmusan okay su'aasha ana la weydiiyey mid waa xaradheero mid baa iga maqan hobyo gobolka Mudug intaasuu degmuu leeyahay ana saasaan u aqaan kuwa aad ka tagaysid ma jirto kuwa loo sameeyo Puntland u sameeyay jidha laakiin degmooyinka Soomaaliya maaha waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka isweysiyo su'aalaha su'aashu maxay tahay magacaaga aniga Rabadaan Abdulle Ibrahim inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa su'aashu waxay ku leedahay hooyada oo xaamila baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd bay umushay ilmaha ay dhashay adiga walaalka ma ahan maxaa isku tihiin hadaba ilmaha hooyadeed dhashay de walaalaan isku nahay walaalaan isku nahay isugu tihiin marka dimene abbo isku abban wada dhalema isku abba wada dhalema de walaalaan nahay marka ciriyo dhul maxaa u dhaxeeya ciriyo dhul de bilaadan baa u dhaxeeya maxaa u dhaxeeya bilaadan وسود وين يا أضبط ما صنتها ولا سلمان باليرها سلمان وسؤاش waxay ku leedahay hooyada oo xaamila ama uur leh baa safar gashay safarkii inta ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay dhashay walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin walaalkay xaqad iga mar hooyada waa dhashay hada walaalka ma ahan bay su'aasha ku leedahay jawaabta laga rabaa tamii soconaysa ma baa hooyaday waxay dhashay waxay dhashay walaalkay xagee adigu ii wadaa ma soconaysa wax kale su'aasha kale waxay ku leedahay cirka iyo dhulka maxaa u dhaxeeya waxba ma dhaxeeyaan saan filaya deel macnawiin adoo inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa nuurow waa weydii kartaa cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya cir iyo dhul ilaahay baa u dhaxeeya waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka isweysiyo su'aalaha waan ku dhaweeyay walaal magacaaga Salaam Hussein inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa wadiyaar baa su'aashu waxay ku leedahay koowaad hooyada oo xaamila ama uur leh baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay dhashay adiga walaalka ma ahan maxaa isku tihiin
walaalkay weydii see marka uu yahay sahooyo midalin haye walaalkay weey cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya waxba ma dhahayaan waxba ma dhahayaan waxa u dhaxeeya laga waxba ma dhahayaan cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya samada u dhaxay hawada haye iyo wax kale maxaa waxa kale waxa weeye kalluunka sidkiisa waa meeqa kalluunka والله halka garan ma kalluun maxaa isdhihi lahayd maxaa isdhihi lahayd garan ma kalluunka hadee meel kale ii sheeg waayahay su'aashu waxay ku leedahay maxay ahayd magaaladan Garowe maxay caan ku tahay waxay caan ku tahay madaxweyne see caan ugu tahay saas ku tahay see ugu tahay see madaxweyne madaxweynaha hadee magacii dani waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Suwaysi su'aalaha barnaamijka ay ugu soo dhaweynaysid muxuu haye maxay su'aasha dib ugu waxa sheegtaa sidka kalluunka sidka kalluunka hada weydiisay sidka sido ilmihiisa taa waad ku dhacday anna waa ku dhacayaade haye sababta waxa way uma nahayn wana haye maahe duqaadar ma qaadi wax kale ay wadi adu ma taqa haye su'aal kale ku weydiinaa haye su'aashaas waxay ku leedahay hooyada oo xaamila ama uur leh baa safar gashay haye ilmaha intay safar ku maqnayd bay ilmo dhashay haye ilmahaas adiga walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin mana hooyaday intay maqnayd bay uurka ma la tagtay mase uurka intay maqnayd bay xaamila bay safar gashay iyadoo xaamila bay u tagtay haye markays intay safarka ku maqnayd ilmahay dhashay haye ilmahaas adiga walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin ilmaha waaniga hooyaday hadaa ilmaha maxaan isu diin jawaabta laga rabaa walaalkay weey walaalka ma ahan ma hooyaday uur leh haday iga tagtay oo jidka intay maqnayd umushay ilmaha walaalka ma hamiya ma ahan maxay isku tihiin adaa laga rabaa jawaabta adiga walaalka ma ahan ma adeer su'aashan ku weydiinayo waxa weeye waxay ku leedahay hooyada oo xaamila ayaa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay umushay ama dhashay adiga walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin hooyadii oo umushay oo safar gashay ilmaha hooyadii baa dhashay walaalana maxaa dhacay adiga walaalka ma ahan jawaabta laga rabaa والله وهذا سؤال معناها إنها هذا أنا ولا راهين وإسكوا بنا مياه إسكوا يا كليميا سؤال ولا كتير عري دول محاول حياة يا عري دول وحاول حيس هو ديار باوهاي سؤال شو حكوا لي هذا هاي الست كلون كانوا شيء بعد كلونك انتي والله كرنو حاس بيه قياس عن بال نو سؤال waxa ku leedahay cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya ciriyo dhul maxaa u dhaxeeya cirka iyo dhulka waxa u dhaxeeya sama waxa u dhaxeeyaan jawaabta waxa u dhaxeeya laga rabo dunya ku nool Soomaan cirka iyo dhulka okay waa ku soo dhawaa magacaaga liibaan maxamed cabdi liibaan oo inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa diyaar baan waa waayo su'aashu waxay ku leedahay hooyada oo xaamila ah ama uur leh baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay dhashay walaalka ma ahan hadaba maxaa isku tihiin hooyaday oo umushay safar gashay safarka markay gashay hooyaday way umushay cunugay dhashay walaalo mihin walaalkay ma aha hadda hooyaday waa dhashay soo waalku naqa waayay markii
adaa lagaa rabaa jawaabta hadda su-aasha waa jawaabdaas waa jawaab ugu adagale maxaa yeelay cunug hooyada dhashay aniga walaalo aan ahayn macquul maaha kama jawaabdaas way ugu adag tahay cir iyo dhul maxaa u dhexeeya cir iyo dhul ah allah baa u dhexeeya ku dhawaa walaal maanta axmed axmed su-aasha waxay ku leedahay hooyada oo xaamil ah ama uur leh baa safar gashay safarkii inta ku maqnayd ayay ilmo dhashay ilmahaas walaalka ma ahan maxaa isku tihiin walaalkay maaha waayo su-aasha marigu celi hooyadii baa safar gashay uur leh hooyada oo xaamil ah safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay umushay walaalka ma ahan haddaba maxaa isku tihiin waxaan isku nahay hooyaday oo xaamil ah oo safar gashay safarkii bay ilma ku dhashay ilmaha walaalo ma nihin walaalkii maaha ilmaha waa dhintay miyaa ma dhinta ilmihii su-aashu waxay ku leedahay cirka iyo dhulka maxaa u dhexeeya cirka iyo dhulka waxaa u dhexeeya daruuro su-aashu waxay ku leedahay koowaad cirka iyo dhulka maxaa u dhexeeya cirka iyo dhulka maxaa u dhexeeya cirka iyo dhulka haddaan haddeer anigu aan qiimayo waxa u dhexeeya cirka iyo dhulka wax u dhexeeya waa hawadaas u dhexaysa uun su-aasha kale waxay ku leedahay gobol ka tirsan gobollada Soomaalida oo 4 xaraf ka kooban labada xaraf oo hore haddii laga saaro labada soo hara waa xawayaan magac xawayaan gobollada Soomaalida wallahi gobolka ma garan karo xawayaan xaraf ka kooban yahay labada hore markii laga saaro labada dambe waa magac xawayaan laba xaraf baa waxay noqonayaan magac xawayaan markii labada hore laga saaro oo maxay noqdaan waa laba xaraf yaa waa laba xaraf waa xawayaan magacii waa xawayaankaas inuu si jirin waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka Sweysii su'aalaha walaal su'aalaha waad ku mahadsantahay magacaaga aniga Cabdiwahaab baa leeyahay Cabdicasiis waaye inaan su'aal ku weydiiyo soo aragtaa waa caado way weydiin kartaa su'aashu waxa ku leedahay cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya cir iyo dhul baa caad baa u dhaxeeya cir iyo dhul waayahay su'aashu waxa ku leedahay hooyo oo xaamil ah baa safar gashay safarkii inta ku maqnayd ayay umushay ilmaha ay umushay adiga walaalka ma ahan haddaba maxaa isku tihiin igu celi walaal hooyo uur leh baa safar gashay safarkii iyadoo ku jirta bay ilmo dhashay ilmaha ay dhashay adiga walaalka ma ahan haddaba maxaa isku tihiin ilmaha marka hore soo aabe islaanta ma uusan qabin hadduu aabe qabo walaalkay walaal laakiin hadduusan qabin ma ahan taasaa keenaysaa hadduusan qabin ma ahan su-aasha koowaad waxay ku leedahay kalluunka sidkiisa lagaa rabaa inaad sheegtid kalluunka sidkiisa waxa uu leeyahay ma faa'iido uu leeyahay sidka intuu ilmaha sido wallaahi ma garanayo I don't know yeah laakiin kalluunka lama qiyaas karo wax biyo ku jiro wey waaye su-aasha kale waxay ku leedahay hooyada oo xaamila baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay ilmo dhashay oo umushay ilmaha ay dhashay walaalka ma ahan haddaba maxaa isku tihiin hooyaday oo safar ku jirto baa ilmo dhashay ilmihii markay dhashay de walaalo baan nahay yaa walaalka maba ahaba maxaa isku tihiin hooyada oo safar ku jirto oo uurna leh baa carruur dhashay miya ilmay dhashay ilmaha ay dhashay walaalkay ma aha de muxuu noqon karaa marka ma garanayo wallaahi su-aasha kuwaad waxay ku leedahay hooyada oo xaamil ah baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay maxay ahayd umushay ilmaha ay dhashay walaalka ma ahan maxaa isku tihiin marka su-aasha waxay kaga jawaabayaa
ilmo walaalkay ma aha dhinacna walaal kama nihin soo maaha walaalka ma ahan marka jawaabta laga waa walaal isku aabe maahan laakiin isku hooyan noqonayna ilmaha su'aashu waxay ku leedahay hooyada oo xaamilo ah ama uur leh baa safar gashay safarkii intay ku maqnayd ayay u mushay ilmaha ay dhashay adiga walaalka ma ahan haddaba maxay isku tihiin ilmaha ay dhashay walaalka ma aha hooyadii waa safar gashay markaa walaalana minnihin walaalka ma aha waa walaashay waa gabadh su'aashu waxay ku leedahay cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya cir iyo dhul maxaa u dhaxeeya dabcan waa caqli baan u maraynayaa waa cir iyo dhul waxa u dhaxeeya iyo waa u dhaxeeya waa ku dhawaay walaal su'aashu waxay ku leedahay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya oo 4 xaraf ka kooban labada hore markii laga reebo labada soo haray waa xawayaan magacood gobolka labada soo haray waa gobolka horta waa gobolka bari labada hore markii laga reebo waa bar waa ri waa tahay daawadayaal waxaan filayaa inaad daawanayseen su'aalihii aan weydiinay bulshada oo dhowr su'aalooda qayb ka mid ah waa laga jawaabay qaybna weli lagama jawaabin waxaan rabaa inaan fursad siiyo dadka ee daawanaya barnaamijka Suways iyo su'aalaha ee page-ka Suwayska Cayte iyo channel-ka Suwayska Cayte su'aalaha waan ka jawaabi doonaa laakiin fursad ayaan siinayaa halkaan naga daawanaysa waa channelka Suwayska Cayte anigu waxaan ahay Suwayska Cayte dhinaca kaamirada waa Mawlid Fantastic intaan barnaamijka xigaan ku kulmi doono sidaas iyo nabad